haddaad i weydiisay su-aashaan kula talin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waxaan kula talin lahaa madaxweynaha waqti badan baa waxaa nooga lumay ra'iisul wasaare iyo madaxweynihii baa isqabsaday baarlamaankii baa mooshin ka keenay muran iyo dhib badan baa ka timid arrintaas inayna dib u dhicin waxaan madaxweynaha kula talin lahaa inuu ra'iisul wasaare u magacaabo murwadiisa koobaad si ayna dib dambe ugu dhicin isqabqabsi iyo khilaaf oo sharafta iyo karaamada Soomaaliya waxaan waliba raacinayaa kula talinayaa intuusan ra'iisul wasaaraha horgeyn baarlamaanka asagu ra'iis baarlamaanka ha u tago hara ka dhaadhiciyo inuu murwada madaxweynaha qofka kaliya la shaqeyn ka dhax oo aamini karo dalka iyo maamulka Soomaaliya inay tahay murwada madaxweynaha oo baarlamaanka asagu inta horta saasa ka dhaadhiciyo ka dhameeyo inta iyada ra'iisul wasaaraha horgeyn